wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salmaan Cali Koore ee wariyay wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland ayaa maanta soo kormeeray goobaha laga bilaabayo mashruuca biyo balaarinta galbeedka magaalada Boorama oo muddooyinkii u dambeeyay hirgelinta mashruucaasi ay si weyn ugu hawlaneed shirkadda adeegga biyaha Boorama ee Shaba waxaana ugu horeynba wasiirada ay weheliyaan maamulka shirkadda adeegga biyaha Boorama Shaba ay sidoo kale soo kormeereen saddex goobood oo loo qorsheeyay in laga soo bilaabo mashruuca biyo gelinta galbeedka magaalada Boorama ugu horeyn waxa uu warbixiyay halka maraya mashruucani ay muddooyinkii u dambeeyay wada shirkadda adeegga biyaha Boorama Shaba maariyaha shirkadda Shaba aadan maxamuud hori curaagte waxaana hadaladiisa kamid ahaa halkani waa warehouse-kii Shaba meesha dhammaan agabkii biyaha galbeedka aan muddada 2 sanaba aan ku haynay weeye boqolkiiba 90 way dhantahay alaabtu ma garanaysaa marka la yiraahdo qalabkii loogu talagalay si fiican anaguna waanu daryeelay waxa yaala waxa la wixii beebaha distance-ka loogu talagalay way yaaliin taangigii uu yaala boosteradii way yaaliin mishiinadii way yaaliin waxa weeyaan transformerladii way yaaliin waxa kale oo yaala ma garanaysaa submersible pumpkii baanan wali ishaydu ayna qaban waxa la wixii fitin ahaa wixii kale electric ahaa dhammaanba way yaaliin dhammaan goobta waxa ku sugan waxay u badan tahay alaabtii galbeedka marka laga reebo sabalaygii Shaba oo kan yar ee ku dhex jirjira u badan maahina waxa la waxa waaweyn oo dhan waa wixii alaabtii galbeedka galina waan sugaynay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa insha Allah ta'ala wixii awoodayadana waan la qabanaynaa meeshaba si emergency ayaan ugu dhisnay alaabta darteed sidiina waan ugu haynaa wayna darayalaaday ilaa aakhir laxdaadkana waxaan jecel lahay inaan kaalmayno kontraktorka wasiirka qorsheynta iyo wasiirka biyahana waxaan u soo jeedin lahaa wixii mashruuc ka dhiman mashruuc marka la gudo galo wax badan baa ka dhima marka baa la gartaa imika waan fulinayno alaabtan kale waa alaabteeni kale weeye oo waxaan u diyaarinaynaa inaan dadka danyarta koonayaasha oo UNICEF baa naga caawiyay 80% waan dhignay ilaa 50% waana wadnaa beebkan adarkaysiina la soo saaray waxaan ka soo bilaabaynaa siiteega wasiir qoladiina way cabaysaa qoladii ma garanaysaa hayayaabo way cabaysaa waxa weeyaan aad iyo aad bay ma garanaysaa carabkana kuugu dhifteen waxaan jecel lahaa inaad taangi meeshu way yar tahay oo way yar taagan tahay habeenkii bay biyuhu gaadhaan inta badan in taangi adiguna ma garanaysaa meelaha aad uga raadiso had ugu deeqda ayaan aad iyo aad ma garanaysaa u soo jeedin lahaa saacadatu wasiir imikana hawsheena sii wadaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isku soo duubay waxa xusid mudan in muddooyinkii u dambeeyay shirkadda adeegga biyaha Boorama Shaba ay si weyn ugu hawlaneed biyo baarinta magaalada Boorama iyadoo maamul kooban laga joogo markii shirkadda adeegga biyaha Boorama Shaba ay ku guuleysatay in ay biyaha gaarsiiso xaafadda Hayaabe oo dhacda dhinaca koonfureed ee magaalada Boorama oo muddo sanad ah naawleysay in mar uu biyuhu soo gaaraan